laascaanood ayaa dadka deegaanka sheegeen in dagaal uu socdo. Dagaalkaasi oo ay inoo sheegayaan dadka deegaanka inuu ka qarxay bariga magaaladaasi, isla markaana dagaalka ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay dhinacyada halkaasi isku farasaaraya oo ah ciidamada SSC iyo kuwa Somaliland. Dagaalka ka socda bariga laascaanood wuxuu ku bilowday kadib markii Somaliland lagu eedeeyay ciidankeeda in dhinaca bariga magaalada ay ku soo fasaxeen Oromo badan oo ah mid maalmahanba gaadiid la sheegay inay kaga soo daadgureynayeen magaalooyinka Burco, Hargeysa, Boorama iyo kuwa kale ee la mid ah, kuwa oo laascaanood marka ay u soo dhawaadaan doonayay inay ku soo korgobadaan. Isla markaana waxaa la sheegay in sirdoonka SSC arrintan ay ka war heleen. Warbaahinta oo la hadashay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegeen in markaasi xaalku uu yahay mid aad u cakiran, isla markaana Oromadan ay doonayeen qaab sirdoon inay ku soo galaan dhulka SSC. waxaase la sheegay Oromadan oo dabcan laga soo fasaxay jeelal ay kaga jireen Somaliland qaarkood in loo soo dirsaday shaqadan. Warbaahinta sidoo kale waxa ay heshay sawirro ku saabsan xaalka iyo dhalinyarada u dhashay dalka Ethiopia ee Oromada ah oo la qabtay, waxaana ay sheegeen in laga soo diray qaybo ka tirsan Somaliland oo markaasi iyagu qaab sirdoon ahaan ay halkan ku soo aadeen. Wararka waxay sheegayaan in bariga magaalada iminka dagaalka uu si xoogan uga socdo. Cali Cabdullaahi oo ka mid ah dhalinyarada hogaaminaysa jiidda hore ee dagaalka SSC ayaa xaqiijiyay in dagaalka uu si xoogan u socdo, isla markaana hadda laga dareemayo bariga magaalada oo ciidamada Somaliland laga sifaynayo goobihii ay ku sugnaayeen. Buurta anteenada ayaa hadda la isla joogaa oo la isla sii dhaafay, iyadoo ciidamada SSC ay u dhaqaaqeen sidii ay u qaban lahaayeen guud ahaanba magaalada. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aad iyo aad ay markaasi uga walaacsan yihiin xaalka iyo sida uu yahay, isla markaana khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacba ay arkayeen. ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kuwa Somaliland oo maxaabiis ayaa sidoo kale la qabtay, kuwaasi oo 20 dhan sida uu inoo sheegay mid ka mid ah saraakiisha SSC ee furmaha dagaalka ku sugan. Warbaahinta oo sidoo kale isku dayday inay la xiriirto dhinaca Somaliland ayaa ay inoo suuragelin oo taleefanadooda ay ka jawaabi waayeen si aan wax uga weydiino xaaladda. Gudida 33 ee ku sugan magaalada Laascaanood oo tiradooda laga dhigay 45 ayaa iyagu hadda kulan degdeg ah in amar buuxa la siiyo ciidamada SSC si ay u soo afjaraan ciidamada Somaliland ee duulaanka ku soo qaaday SSC. Warar kale oo soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in xilligan Somaliland ay iyadu ku doodayso in la soo weeraray oo isdifaacid ciidankeeda ay ku jiraan. Dagaalkan ka qarxay magaalada Laascaanood barigeeda oo ka duwan dagaaladii hore ayaa la isku adeegsanayaa qoryaha BM-ka, iyadoo ciidamada SSC ay duqeynayaan Gooja Cadde iyo deegaano kale oo ka fogfog oo shacab Somaliland taabacsan ay ku nool yihiin. Xaaladahan oo idil ayaa ku soo beegmaya xilli 8 bilood ee aynu ka soo gudubnay ay cakirneed xaaladda magaalada Laascaanood. Warbaahinta waxaa xiriiro kala duwan ay la samaysay dhaqaatiirta ku sugan magaalada Laascaanood, waxayna sheegeen in tiro dhaawacyo la soo gaarsiiyay oo hadda macluumaad dheeraad ah aysan bixin karin, isla markaana dadka la soo gaarsiinayo ay u badan yihiin dad rayid ah oo guryahooda ay ugu tagtay rasaas iyo madaafiic habow ah oo dhinaca Somaliland ka timid. Somaliland ayaa waxaa dhowaan wacd ay ku martay inay qorsheynayso duulaankii ugu dambeeyay ee ay ku qabsanayso magaalada Laascaanood, isla markaana waxaa muuqata Laascaanood inay tahay magaalo dagaal muddo ku dhow sanad wajahaysa, dagaalkaasi oo wax xal ah aan loo helin. Dagaalka qaraar ee hadda ka socda bariga magaalada ayaa ku sii fidaya dhul hor leh. Ciidamada SSC-na waxay doonayaan ugu yaraan deegaanada laga soo abaabulo weerarada iyaga ka dhanka in ay gacantooda soo geliyaan. Sidoo kale dhalinyaradii Oromada ahayd ee dagaalka uu ka bilowday ayaa hadda lagu hayaa magaalada Laascaanood xabsi ku yaala, waxaana la rajeynayaa in loo masaafuriyo dalkooda Ethiopia maadaama ay yihiin kuwa la soo qalday, sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka SSC oo ku sugan magaalada Laascaanood. Maxamed Garaad oo ka mid ah dhalinyarada jiidaha hore ee dagaalka ku sugan wuxuuna sheegay in khatarta jirta magaalada ay aad u kordhayso kadib markii Somaliland ay sii laba jibaartay duqeynta ay la dhacayso magaalada oo ay doonayaan inay gubaan iyagoo adeegsanaya hub sun ah oo mararka qaar abuuri kara jawi ka duwan jawigii hore, xitaa qofka aan ku dhaawacminna uu ku sumoobi karo. Ciidamada Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore waxay sheegeen
in markaasi aysan iyagu wax shaqo ah ku lahayn dagaalka iyo duqeymaha oo isdifaacid oo keliya ay ku ururaan marka xaaladahan oo kale ay taagan yihiin. maalinkii dagaalka uu qarxay oo December dabayaaqadeedii ilaa iyo maanta ma jirto cid rasmi ah oo ka heli karta macluumaad xaaladan, isla markaana waxaa la tilmaamayaa in gebi ahaanba xaaladdu ay kasii dari karto, iyadoo ay muuqanayso in gebi ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ay ku baraarugsan yihiin inay doonayaan in si wadajir ah ay ula dagaalamaan Somaliland si loo soo afjaro jiritaanka Somaliland ee deegaanadan. madaxweynaha Somaliland ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu ku hanjabay dagaal, halka reer SSC oo kaashanaya Soomaali weyn ah iyagu dagaal ku hanjabeen. dagaalkaasi oo ay yiraahdeen waxaa naga go'an inaan ku soo afjarno meel kasta oo ay nala galayso ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanadeena. dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay in doorkeedii ay ka soo bixi weysay ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa dhinaca Somaliland inay u garbinayso marka loo eego nidaamka irir-Soomaalinimada oo dhowaanahan aad u sii xoogaysanayay si weyn looga abaabulayay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. kitaabkan gacanta ku haya waa kitaabka Ilaahay, qofka barta isla markaana ku dhaqma waxa uu Alla siinayaa hanuun adduunyo iyo naxariis aakhiro. waalidka qurbaa ku nool waajib weyn ayaa ka saaray inay ubadkooda ku barbaariyaan fahanka Quraanka Kariimka, cilmiga shariicada Islaamka. haddii baad raadinaysa macallin ubadkaaga kugu barbaariya, waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku dhiga ee Macad Tartiir Quraan Online Academy oo ah dugsiyada ugu faca ballaaran ee ay ka qalin jabiyaan arday kala duwan oo qaaradaha adduunka ku nool. aqoonta kala duwan ee macadka lagu barta waxaa ka mid ah barashada Quraanka Kariimka, barashada higaada luqadda afka Carabiga, barashada luqadda Carabiga, iyo waliba barashada aasaasiyaadka cilmiga shariicada Islaamka sida fiqiga, tafsiirka, caqiidada, axaadiista iyo waliba ducooyinka. sidoo kale waalidiinta waxaa la baraa isla markaana laga saxa salaada, ataxiyaadka, waliba aayad kursida. waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Tartiir Quraan Online, kaasoo ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca, adigoo ka wacay taleefanada shaashada kaaga muuqda. ballanteenu waa inaynu hadda iska diiwaan gelino macadka Tartiir Quraan Online.